waayahay soo dhawaada saaxiibayaal waxaan rabaa inaan idin la wadaago dhaqdhaqaaqyada culus ee ka socda magaalada Beled Xaabe ee gobolka Gedo iyo Doolow oo saacadihii ugu dambeeyay muujadii hore muujada ka duwan ee markaas ka dhaxaloosan yihiin haddaba maxay tahay xogta iyo macluumaadka cusub ee ka imaanaya gobolka Gedo gaar ahaan Doolow iyo Beled Xaabe inta u dhaxayda waxa ka socda sansaan dagaalteed ugu cusleed ee abid haddaba yaa isku dagaalaya inta ayaan kugu faahfaahin doona ee soo dhaw marka hore sii share garee muuqaalka meel dheerna la gaarsiin qaybta hoose faalada commentiga ee nagu wadaag kartaan like tana saaxiibo fara badan ayay ina tusaysaa dhammaan mareegaheenana waan ku soo baahin doona muuqaalkan way soo dhawaada saaxiibayaal magaalada Doolow ee gobolka Gedo saacadihii ugu dambeeyay waxa si weyn markaasi ugu socday abaabulka dhanaha dagaalka ee Itoobiya ay ku haydo dawladda ee Soomaaliya iyada oo saacadihii ugu dambeeyay la arkayay in Ethiopian aad u fara badan ay ka soo gudbayeen xadka Soomaaliya iyo Ethiopia ay wadaagaan oo ah Doolow Soomaaliya sida xogta wararka hoose aan helayno ayaa sheegaya in wasiirka amniga ee Jubbaland magaaladaasi uu ku sugan yahay iyada oo saaka xilli la qorsheynayay in markaasi laga wardoono ama la ogaado xogtiisa saxda ah ayayna ciidamada Ethiopianka ee markaasi ku sugnaa dhinacaas kale ee Ethiopia ay ka soo talaabeen una soo talaabeen xuduudka Soomaaliya waxa sidoo kale jira warar kale la yaab kale ayaa ah in saacadihii ugu dambeeyay ay si weyn markaasi ay u haystaan tuulo la yiraahdo Malkahaarey oo markaasi qiyaastii 15 kiiloomitir u jirta magaalada Doolow Soomaaliya ee gobolka Gedo arrintan ayaana u muuqata in talaabo culus oo ay qaadayso dawladda Itoobiya ay tahay taasi oo markaasi ay si weyn ugu soo faragelinayso ama qorshaha ee adag waqtigan la joogay ay si adag markaasi ugu haydo ama markaasi dawladda Soomaaliya ay markaasi u faragelinayso waxaana sidoo kale jira maamulka degmada Beled Xaabe ee gobolka Gedo ayaa sheegay laga bilaabo maanta in aysan aqoonsanayn maamulka ama markaasi Jubbaland ayna ka mid yihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo markaasi muddooyinkii ugu dambeeyay xiisada labada dhinac buu aad u kacsaneed ayaa haddana waxa muuqata in marka laga tago gadoomiyaasha iyo qaar ka mid ah taliyaashu ay si weyn markaasi u raacsan yihiin Axmed Madoobe laakiinse ay waqtigan la joogay ay qayb weyn ay ka yihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya ama ay cadeeyeen mowqifkooda ku aadan sida markaasi mas'uuliyiin badan waa gudoomiyaha amniga degmada Beled Xaabe oo ka mid yahay dadka dad arkaydan ee meeshan ka hadlay ama markaasi sida sheekis hore baan u baahinay haddaba waxa intaasi ka baxsan in ciidamada Etoobiyaanka ee waqtigan la joogay ay isku horfadhiyaan Malkahaarey iyo waliba sidoo kale inta u dhaxayda Luuq oo ah meel Soomaaliyeed ama dhul Soomaaliyeed oo ayna markaasi si awood ah ay ku tuuran yihiin ciidamada Etoobiyaanka ay ku horfadhiyaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee ka jooga halkaasi iyo waliba soo kale kuwa Jubbaland laakiin waxaana wararku ay sheegayaan in ay si sax ah markaasi ay rabaan inay ula wareegaan qayb badan oo kamid ah gobolada Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo iyo waliba soo kale inta ay maamulaan wixii warar kale ee ka soo kordha halkan ay kula wadaagi doona si share garee muuqaalka oo meel dheer nala gaarsi aragtina qaybta hoose faalada commentiga ayaad inagu wadaagi kartaan mahadsanidin